السلام عليكم كسر هذا يوتيوب كيجا وأنا إياه حاس كيجا قالي أحمد مسكينتي أحمد هي مسكينتي أنا أحمد هي قالي وحيدتي دي فنانة دي إن الله حواي سلام ديري كتاكتي مركا مانتي أنا ربع إنا ورستو حاس كيجا أو كورستو فنكيدي iyo waxyaalo badan ka wareystaa rabaa su-aasheedu ugu horeyso waxa waaye horta maxaa kugu dhaliyay inaa fanka iska dhaaftid ama aad ka baxdid basiisaba horta fanka ma jeedaa muddo hore soo galay ogta ma sanadkee soo gashay horta oo caga ana hataa ma ogeyn fanka waxaa igu dhaliyay wax kala ma inaan ka baxo waa ogeed adiga kulli dadka u sheegayna adiga wax kasta la socotay magta ana xitaa waxyaalaha la soconina jiro maxaa la socon okay dhib ma laha ma su-aasha iga jawaab waxa la socday iyo waxa la socdayna waa ka tagaa waxaan la socon ma ka qaadana maxaa adiga kaliya ma lagu sheegay dadka youtube-gaaga horta youtube-gaaga dadka ma salaamina xaq daray salaam ayay hada salaam waa islaam dhamaantii salaam kadib maxaan ku raadayay waxa waaye fankayga aniga inaan maanta ka baxo maanta ma niyeysan shalay ma niyeysan darad ma niyeysan waxaan niyeystay sanado ka hor intaas sano waxa waaye waxa i soo gaarsiiyey waxyaabo badan waxyaabahaas oo kamid yihiin beriya iska dhaafaysa xogaa lacag iska aruurso wax furo waxaan sameyso markaad saan sameyso iska daa markaa hiblaayo meeshaas aad tagtiin iska waxaa jooji waxyaabo badan ayaa fankayga maanta inta soo joojiyay ani jacayl uma qabin qofku markuu jacayl qabo waxa waaye heeso badan uu soo saaraa shooyo badan uu samaystaa meelo badan uu aadaa waa laga fahmi lahaa hobigayga waagi ahayd ma ahan hadda maanta fanka marka niyadeyda ayadoo saas ku jirto oo habeenba habeen markii habeenkii la gaaray special waxaas dhahaa goormay video duubtaa haddana intaas waxaa ka cabsanayay wax kale ma ahayn waxaa ka cabsanayay berito inaan niyadeyda haddii aan aniga kaligay aan ka baxo niyadda aan iska dhaho inaanan yani noqonayno qof maaragtay hadhow inaan iska dhaadhiciyo dadka kuma oga iskaga lacabo ma fahmila marka sidaas ay tahay markii dambe waxaan go-aansaday dhowr mar inaan video duubo waxaan u duubi waayo waxay ahayd waxaan isdhahay maalmoba dadka markaan ku dhaaxda waa ka baxaya inay dhahaan go-aanka ugu dambeeya markaa gaartid le ka bax hadda go-aan weli maada gaarin waxyaaba badanaa jiro ma fahamta so dadkana waxaan dhihi karaa qayba kala hayaan dadka qaar sababtoo ah waxay leeyihiin go-aankaaga ugu dambeeya markaa gaartid fanka ka bax hadda video ha duubin hadda saahan yeelin marka dambena waxa waaye waxaa isdhahayaa maalinba maalinta iska bax laakiin heesihii inaa horta waa dareemi kartay heesihii aan soo saaraya ama video inay yaraayad 19 kasoo bilaabo 19 ama 18 waxay ka dambe kasoo bilaabo heesaha waa yar ani heesaha walba too much muu jecleen laakiin waaga hore 12 13 14 15 16 fanka waxa u ahay jagan u ahay maantay ama waxa igu dhaliyay waxay ahayd waxaan isdhahayay fanka horta heesaha waa joojiyay bataatan dadku imay soogeen mana aana la sheergarayn laakiin video hore ay youtube-kayga geliyay ayaa ku jiro oo aan dhahay fanka mar dhow waa ka bixi rabaa marka hees wax la dhaho ama video inaan soo saari diyaaru ma ahayn xitaa heesaa jirtay oo layga rabay oo ogeed oo maaragtay lacagteeda celiyay oo aan dhahay heestas ma soo saari karin videogeeda mp3geeda markaa soo saaray marka waxaa iska yareynayay laba mid inay isku mid noqonin wixii adoo rabtid inaad ka baxday haddana inaad videoyaal soo samayso waa wax laga fiican yahay because still wax daacad kaama ama qof shaksiya ka oo yani dadaa dartooda uga baxdaa la iska dhigi karaa ma fahamta marka ilaahay dartiisa horta fanka uga baxay maantay saake markaa hurdada kasoo kacay horta gabar aan naqaano aniga iyo odagayga iyo dadka reer badankooda ay yaqaanaan allahu naxariista caawa naga hooseysa gabadhaas ayaa maxaan ku rahdaa markaan hurdada kasoo kacay video waxaana loo soo sheegay dhimashadeeda waxay soo sheegaan indhowo hataa raagi masuugiin ana raagi markiibu sheegay waa naxnay horta geerida sideedaba qof kasta isagoo og inuu dhimanaayo ayuu haddana maalin kasta markuu qof dhinto oo arko wuu sii naxaa mugti wuu sii naxaa asagoo og qof walba maxkamadda wuxuu saaraya dhimashada ilaahay mugti maxkamadda ilaahay oo ah dil toogasho laakiin nin walbaaba markuu arko qof inuu dhinto markaas ayuu niyadiisa waxa soo gashay inuu qofkaas isna xilli uu dhimanayo soo ogeyn ma fahanti marka gabadhii
waxaan aniga ka naxay ilaah u naxariistay walaashii xal aniga ila joogtay inaan waqti isla qaadanayn aniga isla baashaalaynin haddii ay ogaa lahayd inay dhimanayso oo maanta ay aakhira aadayso ay ogaa lahayd waxyaabo badan ay sii samaysa lahayd way sii digtoonaan lahayd xataa aniga imaysa imaatay runta markii laga hadlo jacaylka aniga ii qabo waxa waaye aniga meel waa heesaaye waa la baashaalaya laakiin imaysa imaan lahayd haddii maanta dhimanaysa ay ogtaa maho anigana haddaan ogaa lahay xitaa gabadhaas inay maanta meesha ay dhimanaysaan ogaa lahay ma sii heesi lahayn oo ilaahay googya so waxa waaye go-aankaygu wuxuu aan ku gaaray dad badan oo soomaaliyana ee iska dhaadhiciyaan waxa waaye markaad weynaatid markaad 30 gaartid iyo 40 iyo 50 aa ka baxaysaa dadka horta badanaa waa sheekadaas waa dadka dhinacna xataa iga dhaadhacsanta yes I know you waa ku aqaana raagay markuu weynaado oo 40 gaara ama aad duqowda waxaa isdhahay markaasaa xoogaa laakiin yaa garantiin noo siiyey inaan noolaan doono because qofka geerida yaraantaada iyo weynaantaada mar aad dhibinaysid allahu yaclam ilaahu ma fahmi marka ani waa fakeray waxaa isiri qaaliyey maantay waa ujeedaa geeridu waa ujeedaa birito inaad dhimatidaa laga yaabo ani inaad dhintaa laga yaabo maanta caawa isla markaa dhintaa laga yaabo mugta laakiin aniga waxaan go-aan ku gaaray maadaama aan arkay de wax aan ku qoos qaato oo aada uga naxay fahantay inaan stop gareeyo fankeyga bataatan mana ahan gabadhaas dadaa waxaan arkaya isku kaya soo dejinaya ilaah u naxariisto yes ilaahay ka sokow markaan aniga fankeyga waxay ahayd maantay beri dambe ka bax laakiin markaan naxay oo aan dareemay inay maxaan ku dhaha walaashay iga hormartay anigana inaan ku xoog waas ogaa nagasta waa nahay naga dhanta hadda ka hor sheekaan kaa dhexgalaya anoo garow waagii aan boosaaso aabbo markuu dhintay ilaahay u naxariista aaday garow waa u socday marka subaxii waxaan raacayay mataatuuyaan raacayay moogta oo boosaaso ka baxaa garow tagaa mataatuuga marka ninkii iwadayaa marka xoogaa yar sheekaan dhex martay marka wuxuu igu dhahay inta maxaa kasoo doontay adi maxaa inta u imaaday marka waxaan ku dhahay aabayaa dhintay saasaa uu imaaday marka wuxuu i dhahay aniba aabahii wuu dhintay laakiin wuxuu dhahay aabahii markuu dhintuu yidhi dadka meesha jooga qabriga waxaa la dhaho dhaa godka adi gal aabaha qabo adi madax meesha dhulka dhig marka madaxii saas dhulka u dhigoo dhahay problem iyo sheedaanimo aas igu dambayso dhahay raago ani aad waa sognaay ani every night habeen markii la gaaro iyo maalinta isku joogi maxaa isku ogn wax isku ognaay habeenkii inaan qabsado ogta mo hay ko lamiya maadana maxaa isku ognaay doosaare habeenkii damoor oo lasii gaarayo fiidka markii laga soo fiidka normal iska ah xilliga sarada la gaaro anoo quraan daaran xitaa maseexa kari because waa cabsadaa habeenkii waxaa isu sawirmaa qabrigii waxyaabo badan qofka markuu naxana waa dareemi kartiin habeen kasta waa naxaa ilaahay i naxariisto qof kasta islaamana ha u naxariisto qofkii dhintana ilaahay u naxariisto qofkii noolna ilaahay cafiyo marka anoo saas walba habeenkii go-aan ayaan gaari jiray maalintii laakiin normala iska noqdaa so maanta ma aniga maxaan marmarka qaar waxaa ku ducistaa inaan ilaahay uusan maartay habeenkii dadka badanaa waxaa waa dadka badanaa cabsadaan ani habeenkii ana xataa marmaraa cabsadaa laakiin badanaa ma u cabsaday laakiin qof walba u cabsadaa habeenkii qof baana habeenkii cabsida ashigayno maaha cabsida oo maarta guriina ka cabsatid ama baha ilaahay soo xasuusanay laakiin aakhiro maxamed sameysay maxaa ku dambeeyay maxaa marka aniga waxaan dhihi karaa walaashayda ilaahay u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyootana ilaahay maarta samir iyo imaan ka siiyo wiil ayaa jiray ala jiray oo maartay isna dhinta la dhahay isagana laba bes ay dadku sheegayaan because dadka aniga waxaan la hadlay gabdhihii la socday waxay dhaheen laba bes waaye labadoodii iyo haddii wax kala jiraan xitaa ilaahay naxariisto laakiin fankeyga aniga maanta waxaan u go-aansaday waxay tahay gabadhi shalay caafimaadka qabtay ee aniga ila joogtay aa wada qaraaxaysanaynin oo wada joognay inay maanta xaafadayga iga hooseyso macnaha oo maanta ay dee qabrigii u hoyata anigana burina u hoy karaa marka waxaas dhaqaaliyo biri dad ku fikirayso marka fanka adii hore aragtina uga baxdo niidaada hore ugu jirtay laakiin markaa gabadhan dhimashadii maqashay tigaa sii saartay go-aankii 70 camal 100 sii gaarsiisay okay fanka qof walba wuxuu u galaa moogtahay marka adii waxa kugu dhaliyay inaad gashid fanka soo gashid muxuu ahaa fanka laba waxaa faka usoo galay mid hobigaygu ahay midna waxa usoo galay inaan ku shaqaysto famusa
fanka sidiisana waxa waaye labadaas horta usoo galay inay kusoo gabagaabiya rabtaa mugtahay zaidna ma laakiin labadaas aan usoo galay inaan ku shaqaysto iyo inaan maxaan ku rahdaa aan maarata hobigii u ahay sanadadii hore o dhan hobigayga ahay oo jacayl iyo markaas shaydaannimada maarata too much iga waad laakiin markii dambe waxyaabaha ugu badan ee fanka aa ugula jira waxay ahayd maanta lacagtan lacagaa ka sameey ani mugta fankayga badanaa lacagaan ka samaysan jiray ma ahayn fan oo free aan ku xinay dad fanaanin way jiraan ayagu waxba ka faa'iida ayaga qarash ku bixiyo ayaga qarash kusii bixiyo dadkaas waxaan dhihi lahay maanta duruuf haddaysa idii heynin oo aa fanka ugu jirtiin waxa waaye qalad waa inaad lacag ka bixisiin music ama aad adig qarash garaysiin oo adinkii maarata waxba ka faa'iideyn shaqooyin kala teemkiina gashta marka ani waxyaabaha ugu badan ee markii dambe sanadadii dambe igu kalifaya waxay ahayd inaan ku shaqaysto shaqada maxay ahayd aroos oo kale lacag fiican ku helaysaa heesihii oo kaleeto lacaga ku qaata ani heesaha arooska lacaga ku qaada jiro ogtaa heesaha qof shaqsiyo dhir loo qaada lacaga ku qaada jiro ilaa kuwa jacaylka kuwa jacaylkana aniga lacagta ma bixi jirin abwaano badan asxaab ahaan jirnay laxankooda iyo muusigada iyo wax dhan iyo qarashka heesta ku baxaayo ayagaa bixi jirin marka koodii hore hobigayga iyo inaan ku shaqaysto magacaaga markuu meel gaaro ku shaqaysa iga ahayd markuu magacayga meel gaaro oo dadkii barteenna heesahayga waa ku shaqaysana codkayga waa ku shaqaysanaya markastana niyadeyda waxaan mar walba ku duceysan jiray waxay ahayd ilaahay inuu bedel khayr qaba isiiyo oo maantay waxaan uga baahanahay fankan boos ka wanaagsan isiiyo haddana waxaan dareemayaa inaan booskaas haysto youtube aan leeyahay business kalaan furta hadda waa og tahay garabkayga adaa joogta ilaahay ka sugow adaga inkastoo laftirkaaga aan aniga isku shaqo ahayn waxlaysma dhaafna mogta maxbes ma aniga laftirkayga ilaahay waa ka cabsadaa ani waagii aan iskiiwood ka shaqayn jiray waxyaalo badan fankani waxaan inaan duuduubo heese mar horaan bilaabi lahay oo 2013 kasoo shaqaysan lahaa laakiin mar walba waxaa niyaddeeda ku jirtay waxaan haddaa bilowda ama ku fogaataa waxaan dambiga ama ku fogaataa wixii ay haysto waxyaalo badan oo gadaal ii celinaya xataa youtube-kayga aanan si fiican uga shaqaynayn waxaa ka mid ah fankoo kale inaan ka cabsado waxaan isleeyahay ama ku fogaataa ama ku fogaataa ama ku fogaataa صح ayaan dhawid xataa codka waa ku sheegay waxaa ku dhahay videoga hadda tabar walaahay cod mugdarahay codka farqi isqi kale ma kusii daray horta ani dad dhalinyar badana ay imaado oo studio marmar iyagu imaadaan dhalinyarta marka qofkii fanaan uu rabaa inuu noqdo uu imaano ilaa raago niyo heestaana wata inaan iga dubtidaa rabaa ani ilaahay marka horta qofka marka hore waa la taliyaa waxaan ku dhahaa niyo waxaan wax fiican ma aha wax heer laga gaaraa ma aha dadkii fanaaniintii waa aragtaa meelay maanta ka gaareen ma lahan marka waxaan ku dhahaa haddii aad ka maarmi karta iska dhaaf haddii laakiin aan waxaan zaa'id u jecesho aad ka maarmayna waa kuu duubaa video qofku marka hore runtaa u sheega waxaan ku dhahaa laakiin waxaan wax laga faa'iidaa ma lahan waxaa ka faa'iidaysid ma jira lacag ma ka helaysid meel heer aa ka gaaraysidna ma lahan dembi aa kugu soconaya hadda inkastoo fanaaniinta badanaa ay youtube samaysteen still waxaan aaminsanahay inay boos qaladan ku dhagan yihiin sababtoo ah youtube-ka hees haddaad gelisid waa lagu daawanaa soo maha haddaad adiga soo fadhiisatidna waa lagu daawanayaa because fanaaniin badan ayaa jiro ani horta waxaan ahay sidaa aaminsanaa malayna fanaanadii ugu horreysay oo youtube furato waxaan malaynaa inuu uga horreeyay deexdan nush wuxuu gashi jiray heesaha laakiin aniga heesa youtube-kayga uma badneen channelkayga inta ku jirtana waaba hadda isku xiray raagana iga xiraan baa raagi waxa waaye intaas xaqa iga jirtay 9 million 4 million 5 million waa cunay wallahi waa cunay waxaas oo dhan marka waxaa waaye in lacag la helo waxaa ka fiican in qeyrka la badiyo lacag yaro heshid fanka midda kale baraka malaha because maanta haddaad baraka malaha ani aroos soo ma duubin arooska lacagna aan soo qaato wallahi been kuu sheegaa lacagta soo qaato meelay aad ma aqaani arooska haddii maanta 100 kun oo ka yimani waa $1 haddii la isiiyo $1,000 intaan warwareegsanayo oo arooska laga gaaraya wiigga arooska ka dhima laga gaaraya lacagtaas waa dhameeyay I know baraka malaha youtube-kan sidoo kale waa isagana waxa ku jiro waxyaalo badan ma youtube-ka asaga dhibka jira waxay tahay youtube-kii horta inaad gurigeeda iska bixisid ina marka wax u baahan markaas wax ka samaystid oo ku fiican lacag ku haysato waa ma helaysid oo maaragtay ku dhigmato ama ku barakoodo ma fahanteen marka asxaabta hay maxaa kale oo su'aasha ugu dambeysay waxa waaye fanaaniinta kale oo hadda fanka
يعني usoo dhar dhiganayo oo ku sii rabaa inay sii wada meel ka gaaraan maxaa kula talin lahayd horta fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahay in adduunka aad isbedelaan because waxa arkaysaa dad waagi horeysa way yaraayeen hadda everywhere qof kasta soo heesayo haba soo heeso xumee akhlaaqdii ma jirto wanaagii ma jiro maxaan ku raadaay ma jiro heesi anshax lahay qof kasta hadda hadda qolo maanta jiifta arkay maxay ahayd ma yaanu mumkin astaghfirullah anaga ka baxna astaghfirullah laakiin ma walaashin am walaakin afi ada anaga ayagana waxaan leenahay suhan marka waxaan kaloo dhihi rabaa fanaaniinta oo sheegi rabaa walaalahayga kuwa fanaaniinta caadiga oo heesi kara iyo kuwan heesi karina hadda usoo socdo anaga wadada soo marna la soo soctiin oo soo soctiin aniga level ajirto qofka level ma ya level ajirto aad ka bilaabaysa qofku markuu ku wax xun bilaabayo soo xumaan ku sii bilaabamo ani maanta shalay marka aan fanaanimada soo galay anoo qaawan inkastoo amaanta aan intaan waan ka yeelay dadkana way ogyihiin hadartina ay xaqara adika idin taala laakiin aad u yaraay to alifkii heesteed ugu horeysay waxaan horta ka codsanaya youtube qofkaas iskale heesayga qaawan iyo ku asturanba ha iga saaraan raali kaweey qof kasto fiidiyo heesaha haray qofku ugu jiro oo daawaday videogan marka steeba soo maraysa madaxan soo qaawsan jiray madax afarta xab fadhiska markii la soo qaawinay suwaala soo xirtay waxaas oo dhan quruxna ma ahayn laakiin shaydaanka wuxuu iga dhaadhicinayay alaab classic oo markaas classic ay eedadi ma fahanti marka the more aad sii weynaanaysid haddii aqligaaga uu sii bato oo ilaahay ka cabsigiisa sii bato laakiin haddaad ka war maalmoba maanta ka daraysa aad dharka soo dhiganaysid waa wax ceeba kasii daraysaa wiilashu waa naga fiican wiilashu hadday isqaawiyaan xitaa isma qaawiyaan oo intaad ninka ugu dhar dhigashada badan garan iyo wuxuu kusoo heesaya inta somaa iyo surwaal dabagaab laakiin gabarey ma xagga ragga okay waaye gabarey maya fanka sikadeedaba ma fiicni wax fiican fanka ma ka hadlaya yani labiska ha ragga way naga cawreeyeen marka waxaan ilaa gabar kasta oo Soomaaliyeed ama wiil kasta fanaan waxa maanta hadda tira dadkan ay jecel dadkan waxay kugu jeclaa karaan walaaltinimada kugu jeclaa karaan wanaagga kugu jeclaa karaan social media maanta yaa joogaa dadaan fanaan noqon caan oo la jecel yahay oo asturnaan inta kusoo galay asturnaantooda ku jiro ma fahanti marka waxaan leeyahay qof kastoo raba caannimo ma aha fanaanimada waagi hore fanaan horta dhibaatada jirtay caannimada fanaanimo basi ku xirtay waagi hore mogta laakiin hadda fanaanimo kuma xirro waxay ku xirantaa qof kasta oo wuxuu rabo soo saaraya qofka abar walba hadda caan made dadka xumaanta ku socda waxaan idin sheegayaa lacag iyo fees waxba ma taraan waxaa wax taro iimaanka hadduu kaa tagana sidaas hadda ku dhaqmaysin dadka qaar ku dhaqmaysin marka ani gabar kasta iyo wiil kastoo fanaana waxaan leeyahay wadada aan ku soco jirna wada fiican maahan aniga maanta waxaa badan ka fiican jiraan oo qofka waxyaalo ku lacag ku sameeyo magacaad haysataa waxa ku shalay marka fanaanimada soo galeysay maanta inay different ku kala noqdo ani maanta isli waa baxay oo lid shareen iyo wax balaan iska dawada jiray saas ama u raaxaysanayaan baxay inshallah laan ma mar inshallah ma aragtay to naqs ugu dhaga ama wax ina iska siibo oo dadka ma aragtay ama dukaan marka meelaha rabo tago waa istuuci jiray laakiin 90% suuq marka caadi dhex socdo inshallah la xiriir jiray wax kale oo nixin jiray fanaanadaay waqti taageera iyad waaye waxas hadda la ku faraxsanaa taageerada ay istaageerayeen maanta rabaa inay taageeraan si wanaagsan because qof kasto maanta arko gabar kasto nin maaya ama seeri gabar kasto Soomaaliyeed haba isiinaysay maamo kasto waliga dad aan maartay fanaaniin aan midaan dhageysan maamooyin way soo waceen way hambaliyeen waxay dheen mid kale dhalinyarta moogtahay maya dhalinyarta wallahi oo bilow tala YouTube-kayga raadi soo barnaamij ma gelin saake everybody oo iso qorayso qoraal iyo dadka isoo wacay waa dhalinyaro iyo dad isku dhex jira aan garanay qof walba wuxuu igu hambaliyeenayaa sidii maalintan isbuursanay igu hambaliyeenayaa iyo waliba si ka wanaagsan qof kasta duco iyo wuxuu u badatay ilaahay ku sii saacidiyo marka anina waan ku faraxsanahay inaad dhanka khayrka u badatay adiga markaa su'aal aan ku weydiiyo rabaa ay weydiin kartaa okay adiga su'aal weydiiyani ma wareed maya adiga laftirkaaga maadaama xaaskaagana ka baxday adigana goormeed jeenaysaa inaad bataatan joojiso aroos koo hees la duubayo labadaa adigu hadda qabtaa macnaha markii laga soo tago filmaan anaga filmaan waa jiri karnaa
haddii aan aniga iyo adiga iyo dad oo wax xumaan lagu soo jeedin oo dhar xun la wadan oo dad la isku dirin oo yani message xun aan la gudbinin waa jili karnaa adiga marka idiga maxaa go-aansatay may filimka ka hadlooya filimka ka hadlooya waxaan ka hadlaya aroos ku lacagtiisa xalaal maahan may horta ani aroos ma jecli aroos wax la dhaho ani ma ka heli what time mar walbo culays iga saaran waa rafaada isku qabnaa marka arooska hadda saa inuu ku joogsan yahay u egtahay laakiin mar dhow waa la joojina hadduu ilaahay idmo okay heesahana waxaa waaye meeshooda saaki ayaan la soo wacay meeshaan ma ka sheegi kar saaxiibka ayaan la waa salaaba maya ani xataa mar hore wallahi hadda ayaantan youtube-kayga waxba laguma arkin soo ujeed heesaan soo saar goor ugu dambeysay heestay ugu dambeysay waxaan ka kari waayay midda labaad ani xataa ma xasuustay wallahi heesta ugu dambeysay oo duub oo dadku filmaanta duub anaga filmaanta waa duubeynaa filmaantii idiin soo celinaynaa sheekooyin idiin soo celinaynaa adinka camal aan noqono arabna inaan noqono adinka camal aniga horta bataata fanaanadii in la dhaw ma rabin waxaan rabaa inaan noqdo anina kaamiramanka in la dhaw ma rabin hadda xaaskaagii maadaama ay fanka baxdan maxaa ka leedahay horta arrintaas ani waa soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay qeyr nagu soo bato waaye awal xoogaa lugna waxaa kula jirnay xumaanta lugna wanaagaa kula jirna waqti hadda hal lugay kala soo baxda anaa weli lug iigu jirtaa aniga waa kala soo baxda anigana waxaa waaye waa liiga soo jiidoyaa haduu ilaahay mardhow waa kala soo baxa saara uga soo jiidoya wallahi rabbi nii sheegeen marka waxaa leenahay dhammaan dadka oo youtube-leyda oo muuqaalada heesaha duuban ayagana waxaan leenahay ilaahay meel kale waxa idinka siiyo iska dhaafa midda kale wax kale maraba message ma ka baxsan karaa meesha ma ka tirsan karaa maadaama adiga youtube-kaagiya ka dhiib waaye qof kasta oo youtubera oo waxaan ka codsanaya maantana aan soo dhahay ee heesahayga ugu jiro ha iga saara videogii hore haddaad arkin kan haddaad aragto iga saar walaal macaan ani waxaa waaye ayaga dhan qaaladan la qoray oo iisoo baxday heesaha ku dhuftay daliidaan dhahay ha aniga waa leed intaas le waa symbol oo qofka aan garanaynin ha highlight garay ha search garay ani dadkan aqaano waa wacay wiilasha aqaan way iga saareen kuwana way iga saarayaan kuwii aan iga qaban youtube-ka adiga inaa magacaaga markii lagu qoro laga waayo maxaa ka leedahay youtube-kayga markii la bixiyey maya markii youtube-ka lagu qoro qaaliladan hees inay baxdaan rabaa hadda kahor ninaa saaxiibanaha hees u duubo maogtahay marka heesaha aana kor u socodin aan private saaraya ilaahay marka private saaray rarag telefonkaa soo dhacay hay halo heestayda youtube-ka ma ku jirtay maxaa dhacay hay raali ah hadda ku soo celi ma inkiri wax ma sameyn raali ah waa ku jaray isla markii soo celi publica dhah maxaa dhihi kartaa heestiis baadiyugaya maya waxaa u malaynaa soo markaas daawanaya ku kala jirano orodiga soo marka heestu ku jirtay marka asxaabta youtube-ka raayo ku xiran odagayga aniga waa waxaa heesii hadda waa saarnay wanaagga u badannahay subscribe to noo saara dhanka wanaagga xaggiisa hadda waxaa shalay sidaa noo sabadgaray jirteen maanta waxaan rabnaa inaad noo sabadgaraysan si ka wanaagsan oo maaragtay aana dareensiisaan shalay inaan fanaanimada wax fiicnaan nahay maanta inay wanaag ka fiican tahay inaan ogeysiisaan waayo subscribe-ta like-ta commentiga la yaabo soo duceeya labada youtube maxaan ku rahdaa calooshana in lagu soo biilo calooshana waxaa waa xaggeeda hoolaa ka socoto operation yar yaa jira marka operation mida kale waxaa kaloo samayn jira mataqaanaa waagi hore markaan waxaas dhahaya mataqaanaa haddaad hooyo noqoto fanka ka baxa insha allah midda kale waxaan rabnaa barnaamij inaan soo duubno oo ilaahay hadduu nafta nagu gaarsiiyo aan ii duubno barnaamijkaas waxaan rabnaa intaana duubin ka hor maadaama aan rabno inaan dad wax ku dhibaateyn dadka aan soo qaadan doono inaan halaaba wacno aan kooda hor kasoo fasax qaadano weydiino aan dhahno walaalayaal haye magacyadiina ma isticmaali karnaa midla kaftami karnaa hadday dhahaan yes barnaamijkaas waxa waaye lama iskuma sheegaan waan soo duubi doonaa insha allahu tacaala hayan yaan go-adaa meesha iskale fanaaniinta kalena waa u duceynaynaa ilaahay ayagana kheyrka ha tusiyo intaa la hadli karna waa la hadlayna wallahi intaa la hadli karo waa la hadlay ani dadaa la hadlay waxa waaye waxaan already hadda maanta Bezani iyo ayaanla waa la hadalnay ani Sacdiin waa la hadlay Sacdiin ma la hadlay Sacdiin awalba waa ma duubin laakiin ayadana waxaan isku dayay inaan video kama duubin karo iska yar xoogaa iska caajisan taabaayo laakiin waxaan rabaa inaan idinkaga soo duubo hadday suurto gasho ee walaashay iga ogolaasho fanka inay ka baxdo inaan codkeeda gruupka oo fanfirdhisaa sameynaynaa maya waxaan sameynaynaa wax la yidhaahdo wacyigelinta fanka baxa fanka soomaalida wacyigelinta fanka soomaalida fanka baxa
fanka Soomaalida marka waxa waaye qof walba mid kale inta halkan waxa iga soo hanbiyay walaalkay BK wax waaye asagana dadkii waxa waaye BK ma laho maxamed mubarak Allah magaciisa iska bada BK fanka magacu ku isticmaalay waaye asaga iyo أحمد خير بوا سلامينا ما شاء الله أنت كسلامينا وحنا خير كلا يلا قلب كرو أنا أديك عمل منه قل كرنو أدينا قال لذن إنا ما بدله قال أحمد قال لذن ومجعي قال أحمد دي قال أحمد أوكي وايا بس كده قال لذن ومكي لما قلوا فنان بيلا صوحة سوسنا لكن قال أحمد وقف نورمال أوكي دتك وحنا كعصنينا إن نص شيء قال لذن مليجي بدلها أنا وحاول عذي قال أحمد قاعد بدنا في فيري قال أحمد أبيك قال مدن قال شنو وحياله بدنا في فيري لكن قال أحمد وحكى أوفيشال واحد أوكي ما نورمال وقف نورمال على الدريمة ما يبدل يوتيوب كذا قال أحمد مع الله ما هي أوكي يوتيوب دي ورطت كاب عذيان ما قال لذن أما قال أحمد هدي إلى جعلتي مجعي إن سيوته وجود يوتيوب حتى ولا بدلها قال أحمد لكن هذه مجع أبها كلي كسرعه وفنكين كحسوسنا مجعسنا واجنجي كرينا مدك لو حرب الشيخ ياش إن سؤال ويدي فيديو وجينا قوني وجرا مرك كلا بواقعين قر على كسير إن الشيخ ياش يوديسين فنانين في فنكا ما دام قف كورو وجري أنا أنا قف كادو توبت كانوا توبت ديسوا على أقبله إن يسيق هتي لسيد دقيست قف كاس إنه ما سيق دم بيس كلام صاني جاوليس كلام وحني ذكر يسيق هدقيسنينا ماشي تكو أرتين الريبورت ده جزاك الله خير صاحبي يلا هاي مع السلامة يعني مع السلامة سبسكرايب تنا نجي له بنا رالي